السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن حريد حسن حسين وتقالن حوك سده هل كان إنك لهدلاينا وبدبادة قيسك أوفيشيال إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أول واحد نوصل السعودية برنامج تحنها كاسو كساب سنة بدبادة قيسك إن شاء الله هو عاوح موضوع لو كساب سنة هي هبقن كعرورتا عرورتا لما بهنو إلا خصبه أما العبريو تاسو كيني كرتا نعيب سي أبورمه كاسو كلا إثنين كرا ويدي يا أبيه waalidku waa inay carruurtooda kula dhaqmaan furfurnaan weji furan iyo farxad joogta ah had iyo jeer waa inaysan dareensiinin carruurta waalidiinta xanaaq weji kaduud iyo colaad joogta ah had iyo jeer waalidku waxaa loo baahan yahay ilmihiisa inuu la saaxiibo si dhow taasoo u sababi karto cunugaas inuu noqdo mid mar walba ku dayda waalidkiis hana samaynin carruurtaada inaad oola saaxiibto si xad dhaaf ah taasoo aad oola sheekaysato sidii saaxiibka khaaska aad oola sheekaysato hadday dhacdo taa ayda cunugaas wuxuu ka tegayaa wax walba oo xushmad oo hooyo iyo aabba uu hayay wuxuuna noqonayaa cunug wax kasta hortiina ku sameeyo oo xumaan ah haddii aad tiraahda ka joogna aan kaa qaadinayn li'anna adigaa waxaad gaarsiisay heer wax kasta aad kaga sheekayso taana aysan dhicin mana loo baahno cunuga in loo sidata dheereeyo xarigga kaasoo maaragtay u sababi karto inuu akhlaaqda ka luma had iyo jeer beri ka maalinna aad maaragtay isku rafaadi kartaan ilaa iyo aad gaartaan in maaragtay aad labadiina kala hirdhowdaan had iyo jeer dadka ilaahay owlaada siiyey waxaa wanaagsan carruurtooda inay ku tarbeeyaan diinta akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan mar walbana ay ku wacyigeliyaan dariska sidii oola dhaqmi lahaayeen iyo saaxiibadooda khaaska ah sidii maaragtay u wanaajin lahaayeen intaa ayada hadday dhacdo insha allahu biidnillahi tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynaynaa carruurtaas inay noqon doonaan kuwo aad iyo aad u xushmad badan xushmadoodana ay gaari doonto macallinkooda dariskooda saaxiibkood walaalkood waalidkood intaaba inay xushmo u ahayn doonaan waxaa loo baahan yahay mar kasta in uu maaragtay waalidku ku dadaalo sidaa ayadaa inuu carruurta usoo jiito hadday dhacdo cunuga inaad siiso jacayl dhaafsan xadkii loogu talagalay waxaa dhacayo cunugaas inuu mar walba uu kaa dalbado wax adiga aadan awoodin misena aadan haaban karin taasoo asaga akhlaaqdiisa wax weyn u dhibayso mana loo baahno in heerkaas aad gaarsiiso adigoon cunugaada necbayn asi aan jacayl saa'ida aana siinin ayaad waxaad samayn kartaa cunugaada inaad la saaxiibto saaxiibtinimo xad leh oon xadka ka baxsanayn inaad jeclaato jacayl xad leh markastaana waxaa loo baahan yahay cunugaada inuusan kaa dareemin wax nacayb oo adiga aad u hayso colaad xataa haddii cunugaas inaad maaragtay cabsi geliso ama aad maaragtay waxyaabaha uu haleynayo sidii aad uga celin lahayd inaad maaragtay cunugaas aad xaduud inaad u samayso hadaad rabto waxaa la sameeyaa cunugaaga qolka ayaa lala galaa si xataa haddii aabbuhu cunuga uu maaragtay wax u sheegayo ama uu waaninayo hooyadiis xataa inay ogaato maahan hooyadu hadday sidoo kale cunugeeda wax u sheegayso waaninaysana ma ahan aabbuhu inuu asagana ogaado cunuga waxaad samaynaysaa markii aad wax ka dareento ama aad wax u sheegayso qolka ayaad kusoo xiranaysaa si degan ayaad maaragtaa xataa haddii aad canaananayso canaantaasoo aad ku cabsi gelinayso inuus waxaas u laabanin qolkaad hoos kasoo xiranaysaa labadiina keliya idinkoo ayaad samaynaysaa inaad maaragtay cunugaas aad wax u sheegto mar walbana isku day cunugaaga inaad maaragtay si degan aad ugu sheegto lianna waxaa jiro dad dabeecadooda aad iyo aad ay u adag tahay oo ay dhici karto cunuga haddii aad ku qayliso qayladaas inuu ka doorbidi lahaa inaad adigu garaacdaba oo garaacayo qaylada uu garaacu maaragtay soo dhaweyn lahaa marka insha allah biidnillahi tabaaraka wa tacaala caawa maaragtay mawduuceena aad buu u gaaban yahay intaasaan kusoo gabagabaynaynaa qof walba oo ilaahay owlaad uu siiyey owlaadaada waxaan rajaynayaa inaad kula dhaqmi doonto talooyinka aan kusoo siiyey insha allah anagana kuwa ku dhaqma allah naga dhigo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aad nagu cusub tahay janalka waa janalkiina subscribe like and share asxaabtaada la wadaag haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsantahay daawashadaana daawo doonto insha allah nagu xirnow waxaan rajaynayaa inaan wax kala faa'iidi doono ma ahan muhiimaddu in keliya wax aniga aan soo geliyay adinku aad u dhegtaagtaan laakiin waxaan rajaynayaa insha allah waxaan soo geliyay wax ka badan adinkana in kaga faa'iidi doono commentigaan isku waraysan doonaa iyo sida luuqyada loo soo galay insha allah biidnillahi tabaaraka wa tacaala waana idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu